dagaalka muddada bisha ku sii siqaysa ka socda dalka Ukraine ayaa ilaa hadda ah weerar iyo difaac ay wadaan labada dhan ee halkaasi ku dagaalamay. Ruushka oo dhammaadkii bishiina dhaaftay duulaan muddaba la dhowrayay ku qaaday dalkaasi ayaa hadda sii xoojiyay duqaymihii iyo weeraradii uu halkaasi ka waday. Si gaara ciidamada Ruushka ayaa u bartilmaameedsanaya magaalooyinka waaweyn oo ay kow ka tahay caasimadda dalkaasi ee Kiev, taas oo ay ku sugan yihiin madaxdii iyo qaybihii muhiimka ah ee dawladda Ukraine. dhowaan madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in dawladda Moscow ay damacsan tahay in haddii ay qabsan kari weydo caasimadda dalkiisa ay guud ahaanba burburiso isla markaana ay dhulka la sinto Kiev, waxaana uu dadkiisa ugu baaqay in ay sii wadaan difaac ay kaga hortagayaan duulaanka Ruushka. duqaymaha ay wadaan ciidamada Ruushku ayaa habeen iyo maalinba ku socda caasimadda. gantaalla aan kala joogsi lahayn iyo weliba weerarro aan hakad lahayn ayuu Ruushku ka wadaa halkaasi. sawirro lagu qaaday dayax-gacmeedyo ayaa muujinaya guryo gubanaya, qaar burbursan iyo weliba kuwa ay soo gaadheen waxyeello aad u weyni. sabtidii shalay ahayd ayaa la sheegay in ciidamada Ruushku bartamaha magaalada Kiev u jiraan wax ka yar 25 kilomitir, taas oo ah soo dhowaansho aad u weyn oo laga dheehan karo sida ciidamada Ruushku horumar uga sameeyeen gulufkii ay ku hayeen caasimadda Kiev. dadka shacabka ayaa weli magaaladaasi ku xayiran, halka qaar kalena mar horeba ay iskaga baxeen. waxaa jira qayladhaan isu soo taraysa oo sheegaysa in dad shacaba oo aad u badan waxyeello ka soo gaadhay duqaymaha aan saacadaha badani u dhaxaynin ee halkaasi ka socda. inkastoo ciidamada Ruushku sheeganayaan inay ka fogaadeen waxyeello soo gaadha dadka rayidka ah, haddana taasi ayaa u muuqata mid aan suuragal ahayn, maadaama oo gantaalaha la soo ridayaa ay ku dhacayaan goobtii ay markaasi soo gaadhaan. waddamada reer galbeedka ayaa sheegaya in Moscow ay ku kacday xasuuq iyo weliba tacadiye ka dhana aadanaha, isla markaana ay ku mutaysan karto in lagu soo ogo dembiyo dagaal. balse Raashiya ayaa taasi gaashaanka u daruurtay. haddii ay Ruushka u suura gasho inuu qabsado oo uu gacanta ku dhigo caasimadda Kiev, waxay ka dhigan tahay inuu fuliyey mid ka mid ah qorshayaashiisii ahaa in mar hore magaalada madaxda la qabsado si loo dhiso dawlad isaga daacad u ah. balse geesta kale, haddii Moscow ay ku adkaato inay la wareegto caasimadda Ukraine, waxay falanqeeyaashu sheegayaan in ay doonayso sidii ay u burburin lahayd magaaladaasi, taas oo ay uga gol leedahay in marka dambe ay isdhiibaan xubnaha dawladda ee halkaasi dhufayska kaga jira. ha yeeshee madaxda dalka duulaanka lagu yahay ee Ukraine ayaa sheegaysa in aanay isdhiibaynin, isla markaana ay dagaalamayaan ilaa dhiiggooda ugu dambeeya dhulka ku dhacayo. waxaana jirtay in markii uu dagaalku bilowday ay dalalka NATO soo jeediyeen in madaxweynaha Ukraine loo diro diyaarad dalkaasi ka soo qaada, balse uu ganafka taasi ku dhuftay madaxweyne Zelensky oo sheegay in aanu meelna uga socon dalkiisa hooyo.